kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo dhegeysi kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa Mir Podcast dambaalada beershiya iyo dulqaadka diimaha waxay idinla tahay in eebba uu u ciqaabayo inaysan ku camal falin diin uusan iyaga u waxyoon Montesquieu Paris magaalada jinka iyo malaa'igta Taha Hussein 1889 ilaa 1973 tabshidkii 1722 sharciyaqaan Faransiis ahaa oo la oran jiray Charles Montesquieu oo noolaa 1689 ilaa 1755 ayaa wuxuu soo saaray buug ciwaankiisu yahay dambaalada Beershia Persian Letters Rasaa'il Farisiya waa buug isla goortii uu soo baxay baa ka mid noqday buugta lagu akhris badan yahay haddana lagu tiriyo in uu ka mid yahay buugta ugu wanaagsan kuwii falsafada ee la qoray qarnigii 18aad qoraaga buugu wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay dhaqdhaqaaqii maanfurka Yurub ee ku salaysnaa caqliga cilmiga xorriyadda iyo horumarka wuxuu ahaa sharciyaqaan lagu bartay buugiisa caanka ah ee ruuxa qawaaniinta The Spirit of the Laws oo ah buug ka hadla falsafada siyaasadda iyo dawlad wanaaga laguna tiriyo in uu ka mid yahay saddexda buug ee loo arko inay u gogol xaareen nidaamyada dastuuriga ah ee dunida maanta ka jira waa ninka loogu abtiriyo fikradda kala saaridda saddexda awood ee qaranka laanta sharci dejinta laanta garsoorka iyo laanta fulinta Montesquieu wuxuu sheegay in danta laga leeyahay jiritaanka dawladdu ay tahay in la helo cadaalad nabad sinaan iyo in aan ruuxna ruux kale ka cabsan dhanka kale wuxuu ku baraarugay in cid walba marka lagu daro xukuumadaha oo awood buuxda hesha ay noqoto fasaad iyo musuq miiran sidaas darteedna loo baahan yahay in dawladdu ay yeelato saddex laamood oo hubin iyo isdheelitir isku sameeya kana hortaga in awoodda si xun loo adeegsado waayo awood baa awood xakamaysa power shall stop power Montesquieu buugan dambaalada Beershia wuxuu isku weydiinayaa su'aal falsafi ah oo oranaysa dhaqanka qofka ma waxa haga damaciisa mise waxa hogaamiya akhlaaq samaanta maxaase dhacaya haddii damaca ama anshax wanaaga midkood lagu talax tago si weydiintaas uga jawaabana wuxuu xusayaa sheeko uu bixiyay qisadii beeshii troglodyada the Brabal Troglodytes waa qisada beel uu sheegay in ay ku dhaqnaan jirtay dhulka Carabta oo sameeyay magaalo dadka ku dhaqani ay markii hore noolaayeen iyada oo ruux kasta uu sameeyo wixii damaciisa iyo dooqiisu ay u yeeriyaan arrinkaas oo keenay in uu shaqeeyo xeerka dabeecadda ee dhigaya in uu waarayo kan awoodda leh ee keli ah laakiin marxaladii labaad waxay go'aansadeen in ay ku dhaqmaan anshax wanaag ugu dambeyntiina waxay ku qanceen in ay lama huraan tahay in la helo xukuumad talada u qabata dambaalada 10 11 12 13 ilaa 14 waa qiso inta aad akhrinayso uu maankaagu su'aalo badan iska weydiinayo Soomaalida iyo dawladnimada docda kale sanadkii 1864 Maurice Joly oo ahaa abukaate Faransiis ah wuxuu qoray buug uu ciwaan uga dhigay doodii Machiavelli iyo Montesquieu ay cadaabta ku yeesheen The Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu Joly wuxuu sawirtay in labadan oday ay cadaabta isku arkeen dabadeedna ay dhexmartay dood mid kasta uu ku difaacayo afkaartii uu qabay markii uu ifka joogay Machiavelli wuxuu difaacayaa kalitalisnimada iyo in dantu ay xalaalayso wadiqo walba oo lagu gaari karo madaxduna ay xaq u leeyihiin samaynta wax kasta oo ay xukunka ku ilaashan karaan dantaada maqaar ayba loogu seexdaa Montesquieu isaguna wuxuu difaacayaa xorriyadda iyo in shacabku uu xaq u leeyahay la xisaabtanka madaxda gunaanadka doodana Montesquieu oo dhan la dhacsan sida Machiavelli uu difaacay afkaartiisa dhanka kalena damiirkiisu uu qaadan kari lahayd ku dhaqanka afkaartaas aan qalbiga lahayn ayaa wuxuu ku cabanayaa eebaha daa'imka ah maxaad ogolaatay internal god what have you been meeting si taa la mid ah buugga gabaldhac xadidan The Sunset Limited ee uu qoray Cormac oo goor dambe filin laga sameeyay ninka milxidka ahi waxa jalaya Tommy Lee Jones marka uu ku fashilmo in uu tareen isu dhigo si uu isu dilo ninka badbaadinaya waxa matalaya Samuel L. Jackson wuxuu dood kula galaya gurigiisa isagoo oo abda ka qaba in uu ka hor joogsado in uu mar labaad isku dayo in uu isdilo
waa haddii uu ku qanciyo in uu rumeeyo eebaha aan ogolayn in qofku uu naftiisa haligo. labada nin waxaa dhex maraysa dood ku saabsan jiritaanka eebe iyo hadafka ay dadku u nool yihiin. muddo saacad iyo barka badan dooda waxaa majaraha u haynaya ninka muuminka ah ee ku doodaya in isdilku uu xaaraan yahay oo daliishanaya nusuusta diinta. hase ahaatee 10 daqiiqo ee filimka u dambeeya ayaa ninka mulxidka wuxuu jeedinayaa khudbo gaaban oo uu ku daadafaynayo doodii dheereed ee muuminka. dooda filimkan falsafiga ahi waxay ku dhamaanaysaa oraah ninka muuminka ahi uu eebe ugu cataabayo oo oranaysa ma fahmin arrinka. haddii aad doonayso in aan caawiyo maxaad aniga erayada xujada ii siin weyday? isaga ayaa siisay, aniga maxaa jira? I don't understand it. If you wanted me to help him, why didn't you give me the words? You give him to him. What about me? waa weero uu ku qirayo in doodii looga guulaystay. waana weero qofka maqlaa uu durbo xasuusanayo isla oraahdii Montesquieu aan hore ku soo xusnay iyo tii Nabi Ciise uu ku baroortay kolkii la daldalayay ee ahayd ilaahayow maxaad ii dayrisay? My God, why have you forsaken me? docda kale sida dad badani ay rumaysan yihiin isla buugan doodii Machiavelli iyo Montesquieu ayaa waa dambe waxa laga xaday afkaarta ku qoran buugga caanka ah ee loo yaqaan Protocolaata odayaasha Sahyuunida, Protocol of Elders of Zion, oo dadka qaarkood ay ku tilmaamaan inuu yahay ama ugu yaraan uu ka mid yahay buugta dunida ugu halista badan. laakiin sida dhabta ah aan dhaafsiisnayn dacaayad ay buunbuuniyeen dad aaminsan aragtida shirqoolka oo alaaba ay rumaystaan dadka ka walwalsan noloshooda iyo jiritaankooda. yelkadeed Montesquieu wax laga hayo inuu yiri, kolkaan u fiirsaday waxaan ogaaday in qofku si uu ugu guulaysto umuuraha adduunyada looga baahan yahay in uu xakiim ahaado laakiin uu muuqaal nacas yeesho. malaha isaga oo siyaasaddaas ka duulaya ayuu daabacaadii hore ee buuggan dhambaaladii Persia wuxuu soo saaray isagoo aan ku xusin magaciisa, isla markaana wuxuu ku daabacay magaalada Amsterdam ee caasimadda dalka Netherlands oo xilligaas xagga xorriyadda ku dhaantay dalka Faransiiska. xilligan meelo badan oo Yurub ka mid ah weli waxaa ka sii socda howlgalladii ku caan baxay magaca maxkamadihii baaritaanka ee lagu ugaarsanayay aqoon-yahanada ka aragtida duwanaa wadada kiniisadda ee Kaatooliga. Montesquieu wuxuu ka mid ahaa dadkii ka biyadiiday doodaha wadaadada Kaatooliga iyo guud ahaan diimaha waxay ku dhisan. buuggan dhambaaladii Persia ugu yaraan dhanka kore uu ka fudud yahay kan ruuxda qawaaniinta oo sida qoraaga qudhiisu uu sheegay waa nooc sheeko ah, a kind of novel. waxaana lagu matalay in uu la mid yahay sidii warqad lagu dhex qariyay alaabo loo sido qof maxbuus ah oo ku jira xabsi aan loo ogolayn in uu wax ogaado. dadka ka faalowday qaab qoraalka buugga qaarkoodna waxay yiraahdeen Montesquieu ulajeedada buuggiisa wuxuu qariyay in ka badan inta adoonta dhufaanan ee Uzbek ay qariyeen dumarkiisa maqbiyadaha ah. sidaas oo ay tahay haddana ulajeedada dhabta ah ee qoraagu waa in uu dadkiisa wax u sheego. wuxuu doonayaa in uu dhaliilo duruufaha dhaqan-dhaqaale ee bulshada Faransiiska iyo guud ahaan Yurub isagoo u saluugsan dhinacyada akhlaaqda, dhaqaalaha, dhaqanka, diinta, dowladnimada, siyaasadda iyo qaar kale. labada mawduuc ee ugu waaweyn ee buuggu uu ku wareegayana waa dhaleecaynta kala talisnimada madaxda iyo dulqaad la'aanta diimaha. Montesquieu buugga kama uusan dhigin mid uu isagu qoray, balse wuxuu u muujiyay sidii inuu yahay dhambaalo ay isdhaafsadeen laba sarkaal oo Persian ama Iiraani ah oo lagu kala magacaabo Uzbek iyo Rika oo booqashadoodii ugu horeysay ku tagay Yurub, gaar ahaan magaalada Paris iyo eheladoodii iyo asxaabtoodii ay wadanka uga tageen. qoraagu wuxuu istusay in asluubkani uu fursad u siinayo in uu fikrado badan dadka la wadaago, wax badan oo dhaliila ahna u sheego halkii uu ka dhihi lahaa aniga ayaa sidaan qaba. ayuu wuxuu yiri dalxiisayaal na soo booqday baa sidaas noo arkay, talooyinkaasna noogu deeqay. waa wax sheeg dadban. sida la og yahayna wax sheega dadbani waa ka saameyn badan yahay kana mas'uuliyad yar yahay kan tooska ah. taa waxaa dheer in dalxiisayaasha ajnabiga ah qudhoodu aysan si toos ah wax u sheegin ee taa beddelkeeda ay adeegsanayaan maad iyo jees-jees. kajanka iyo jees-jeeska ayaa ah hubka ugu culus
ee Montesquieu uu adeegsanayo gudbinta fariimihiisa. fikrado waaweyn oo lagu margan lahaa uu dadka ku laqsiinaya erayo kooban oo kaftan iyo jees lagu iidaamay. tusaale ahaan marar badan wadaadada masiixiga ah wuxuu ugu yeerayaa magaca daraawiish maxaa yeelay dhan magacu waa mid ka ay yaqaanaan dalxiisayaasha Bershiyaanka ah. dhanka kalena wuxuu rabaa in uu sarbeebo in wadaadada masiixigu aysan aqoon dhab ah lahayn oo aqoonta ay sheegtaan oo dhame ay harawsi ku dhisan tahay. waayo aqoonta wadaadada diimuhu waxay ku qotontaa ka hadalka alle aysan aadmiga kale waxba ku dhaamin. wadaadada diimuhu dadka waxay ku haystaan cabsida laga qabo waxa dhici doona geerida kadib. wadaadadu waxay dadka ku bajiyaan hub khatar ah oo la yiraahdo waa la dhimanaya. dadka badankooduna kolka ay maqlaan weedha waa la dhimanaya cabsi bay la suuxaan, wax dambana isma weydiiyaan. waa dhab in la dhimanayo, laakiin waa kuma ruuxa yaqaan waxa dhimashada ka dambeeya. sida runta ah qoraagu marna si toos ah uma sheegayo in diintu ay xun tahay ama ilaah uusan jirin, balse wuxuu ku celcelinayaa in wadaadada diimuhu ay yihiin munaafiqiin qaarkood ay niyad wanaagsan yihiin. wadaadada diimaha ee sida tooska ah uga hadlayaana waa masiixida iyo muslimiinta. labada nin ee Bershiyaanka ah muddo 10 sano ah bay Yurub joogayaan 1711 ilaa 1720. muddadaasna waxay si hoose ugu kuurgalayeen hay'adaha iyo dhaqamada dadka Faransiiska ah iyaga oo ka duulaya sidii dadka Bershiyaanku ay waagaas wax u arki jireen. muddadaas iyaga iyo ehladooda iyo asxaabtooda baa waxay isu dirayaan 160 dhambaal ama warqadood. daabacaadii koowaad ee buugga waxaa ku qornaa 150 dhambaal, laakiin daabacaadihii dambe waxaa lagu daray 11 dhambaal oo kale. waa 160 dhambaal oo Montesquieu uu ku muujinayo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ama isaga mid ka yihiin labada ummadood ee Bershiyaanka muslimka ah iyo Yurubta masiixida ah. maxaa yeelay labada nin ee Bershiyaanka ahi ma aha dalxiisayaal caadi ah ee waa dalxiisayaal u ooman xogta iyo xikmadda galbeedka, isla markaasna si joogto ah isu barbardhigaya bariga Iiraan iyo Turkiga iyo galbeedka. waxay isku dayayaan in ay ogaadaan qolo walba dhanka ay ku wanaagsan tahay iyo kan ay ku liidato. arrimaha ay u kuurgalayaanna waxaa ka mid ah akhlaaqda, dastuurka, dhaqaalaha iyo qaybsiga hantida, maamul wanaagga, sayniska iyo diinta, isu dulqaadashada diimaha, fanka, xiriirka ragga iyo haweenka, guurka iyo furiinka, moodada iyo istilka iyo mowduucyo kale oo badan. labada nin ee socotada ah ee Uzbek iyo Rika inkasta oo ay Bershiyaan ama Iiraani wada yihiin oo xagga dhalashada iyo dhaqanka ay ka sameeyeen yihiin, haddana waa kala duwan yihiin. Uzbek waa waayeel waayo arag ah, wuxuuna leeyahay 5 xaas iyo dumar adoon ah oo ah maqbiyado ay waardiyeeyaan niman adoon ah oo la dhufaanay, halka Rika uu ka yahay barbaar doob ah oo aan nolosha khibrad badan u lahayn, dadkana ka weheshada hooyadiis oo Uzbek ku eedeynaysa in uu ka duufsaday wiilkeedii madiga ahaa ee ay keligii indhaha ku nuursan jirtay. meelaha laga dheehan karo farqiga labada nin u dhaxeeya waxaa ka mid ah aragtidooda ku aadan dumarka. tusaale ahaan Uzbek oo ah oday ay dumar badan u joogaan wuxuu qirayaa in uusan jeclayn dumarkaas, taas oo jirta haddana dumarkiisa aad buu ilaaliyaa ugana masayraa, wuxuuna u arkaa inay yihiin hanti uu leeyahay oo ay waajib tahay in indhaha dadka laga dheereeyo. waa haween adoonta ilaalisa ay ka xorriyad badan yihiin. si taa ka duwan Rika waa barbaar aan lahayn wax badan oo uu xeeriyo, taa darteedna si dhab yar buu kula qabsanayaa bulshada Faransiiska, siiba haweenka Faransiiska oo uu ka helayo furfurnaantooda iyo toos hadalkooda. wuxuu ku doodayaa in haweenka Faransiisku ay qaab fikirka dumarka habeen qura uga bareen wax ka badan wixii uu 30 sano kaga baran lahaa haddii uu la dhaqmi lahaa haweenka Bershiyaanka oo kali ah. waayo dumarka Bershiyaanku waxay ku dhaqmaan dardaarankii ahaa dumaro waxa doonaysan diida. Uzbek iyo Rika waxay kala matalayaan facyaasha kala duwan ee ummadaha. hadii goor waayeelku waxay ku mitidaan dhaqamada abka soo gaadhka ah ee lagu soo ababiyay, halka dhalinyaradu ay si fudud ku qaataan hadba wixii sax ugu muuqda. guud ahaan buugga waxaan ku arkaynaa in marka Uzbek iyo Rika ay isbarbar dhigayaan axwaasha ummadaha ay dooda Uzbek aad u culus tahay una falsafad badan tahay, halka tan Rika ay ka qeexan tahay kana qosol badan tahay.
inahaas baan kusoo gabagabeynayna saaxiibayaal. dhegeysigani wuxuu noqon doonaa qaybtii koowaad. qaybta labaad oo ah dhamaystirka maqaalka dhawaan ayuu idin soo gaari doonaa. mahadsanidin.